وناقي هرمر هنربا شعب الصومالي إني فهمان ماشى مرحلة تاريخية أو أي مريان مانتا وحان آدي ربا إن آن فوكس أسار شعب الصومالي مانتا حيكون جران تجابو لتجابين أيو جرتان كودا تاريخ دودا هيبدا ضدنمو أي ليهين شعب الصومالي بحنو الشيغيا وي أركيان وي أخرسانيان ريبوردا مرول بسو بحيا oo aan aad iyo aad u qurux badnayn wax laga xumaado laga xanuunsada arrimaha ku saabsan xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya dawladda Soomaaliya aad iyo aad ayay runtii isugu dayaysaa in ay arrimahaasi ay wax dhaba ay ka qabato waxa aad loo dacweeyaa ama loo eedeeyaa ciidamadeena aad iyo aad ayaan arrintaas u xanuunsanayna oo waxunahay aad iyo aad ayaan u daba taaganahay ciidamada in maxaan ku iraahdaa la hubiyo in ay dadka u istaagaan dadka inay difaacaan maaha dadka in ay dulmiyaan ama ay ku xadgudbaan xuquuqdooda ay leeyihiin ee dadnimo ee Soomaalinimo arrintaasi askarta ayaa lagu eedeeyaa baaritaan xoog leh iyo dadaal badan ayaa taliska ciidanka xoogga dalka Soomaaliya taliska booliska Soomaaliyeed ay wadaan sidoo kale ma aha askariga kaliya ma ahan askariga kaliya waxa aad yeelanayo hadii dambi dhaco laakiin sarkaalka madaxdu waa la weydiin doonaa askarigaasi dambiga galay waqtigu galay iyo sarkaalku waxa ay ugu guuleysan waayay inuu askariga dambiga kor istaago sidaas oo kale ma aha kaliya ciqaab oo waxaan daba taaganahay waxaan horumarinaynaa fursadda ay haystaan ciidankeena oo ah dhinaca discipliinka dhinaca tababarka waxaan wadnaa tababaro ku saabsan waajibaadka askariga xuquuqda aadanaha sida uu difaaci lahaay waxbarasho ku saabsan ayaan ku wadnaa ciidankeena oo aan rajaynayno inay wax badan ka bedesho waxaan joognaa waqti aan leeyahay dadka Soomaaliyeed ay habboon tahay inaan isku tagno oo aan u istaagno halka caalamku oo ka xanuunsaday dhibaatada dadkeena haysataay inaan annagu ka xanuunsano oo aan u istaagno difaacideeda khaasatan mar horena waan dhahay waan ku celinayaa gabdhaha Soomaaliyeed waa sharafta ummadeena ma ogolaan karno wiilal yar yar oo annaga naga tirsan oo xumaaday in ay sharafti naga xanyuubiyaan ma ogolaan karno dadka Soomaaliyeed dhamaantiis yaana lagu halaynin dawlad yaana lagu halaynin madaxweyne aan u istaagno oo aan ilaalino xuquuqda aadanaha dalkeena aan ka bixino magaca Soomaaliya riboorada iyo liisaska caalamka ee lagu tilmaamo meel xuquuqda aadanaha lagu tunto xuquuqda aadanaha lagu tuntaa marka la leeyahayna macnaheedu wuxuu yahay dadkaasi waa barbaarig waa xoolo rule of law meesha kama jiro aan ka nimaado meeshaas aan nimaado dad sharaf leh garanayo xuquuqda aadanaha ilaaliya oo difaaca kuwooda nasiib darradu ay qabatay kuwooda tabarta daran kuwooda muxuu ahaa daciifka ah dad ilaaliya oo difaaca oo hortaagan inaan noqonaana laga rabaa si khaas ah waxaan fariintan u farayaa dadka ku nool magaalada Muqdisho aad baa looga cabanayaa reportka ugu dambeeyay waad aragteen waxaa ku qoran soo barakacay masaajid dawladda Soomaaliya waligeedna raali kama ahayn haddana kama noqonayso wax kasto dadaal oo geysana waa geysan u istaagaano walaalahooda Soomaaliyeed tabarta daran in la difaaco oo la ilaaliyo intaasaan jecelahay inaan gaarsiiyo dadka Soomaaliyeed